naftiisa qofkaan xishmayn damiirkiisuna xishoon ayaa aadmiga xagtoo xumaantoodu wadwada haddaad aragtaan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Mowduuceena maanta ama qodobkeena maanta waa guurka iyo dhaqanka Soomaalida. Horta dhaqanku sida dadka qaarkii u arkaan ma aha labis ama hab u socod, waa ka macno ballaaran yahay intaas. Dhaqanku waa wax kasta oo bulsho dhowrto, qiimo gaarana agtooda ku leh. Dhaqanku waxa uu soo hoos galayaa markaas habka ay ummadda u fikirayso, dhaqaalaheeda u maareynayso, iyo waliba diinta iyo caqiidada ay aaminsan tahay, iyo waliba sida ay isku markaas ixtiraamto ciyaaraheeda iyo suugaanteeda. Marka dhaqan waxaa la oran karaa wax walba oo ay bulsho qadariso, waliba agteedana qiimo weyn ku yeesha, ayaa waxaa la oran karaa inuu yahay shaygaasi waa dhaqan. Horta waxaan leeyahay mar labaad, mar saddexaad iyo waliba mar afraadba kusoo dhawaada dhammaan asxaabtayda. Qalbi furan, gacmo furan waa intii hore noola socotay. Inta dambana waxaan leeyahay sidoo kale idinkuna niyad furan iyo waliba waxaad kusoo dhawaataan mar labaad, mar saddexaad iyo waliba mar afraadba silkal gacayl leh. Horta mowduuceena maanta oo sidaan hore u sheegay waa guurka iyo dhaqanka Soomaalida. Macnaha dhaqankana waxa uu yahay aniga sheega wax bulsho ay markaas ixtiraamto oo agteeda qaali ku ah, ama diinteeda ha ahaato ama ha ahaato markaas wax iyaga caqiidada ay aaminsan yihiin ay ku ixtiraamayaan. Haddaba guurku waa lamaane, waliba lamaanahaas oo ka kooban lab iyo dhadig, si sharciyana markaas nolosha ku midoobay ayaa waxaa la oran karaa guur. Horta ereyga guur waxa uu ka yimi geedi uu qofku meel ka tagayo oo meel kale tagayo. Macnaha guur qofku wuxuu ka tagay noloshii kelinimada ahayd oo wuxuu u guuray nolol mas'uuliyad qaabilsan tahay oo mas'uuliyad saaran tahay. Marka balse dadka qaar ayaa guurka si qaldan u fahma. Si kale haddii aan u dhigo, waa qofku kelinimadii uu ka baxo ama gurigoodii intuu ka tago inuu guri kala samaysto, isagoo waliba mas'uuliyad ay ku dheehan tahay, haddana isaga gaar u ah si uu nolol wanaagsan u dhisto. Dadka Soomaaliyeed horta waxay hidde iyo dhaqan u lahaayeen dhiirigelinta guurka sida caadiga ah. Wiilka ayaa gabadha soo arka marka hore, iyagoo marka hore wada sheekaystay ama aan wada sheekaysan. Sidoo kale ama xiriir ha dhex maro ama yuuna xiriir dhex marin, isagoo marka hore inanta soo arka. Kadib ayaa reerka gabadha dhalay markaas inanka reerkiisu u imaan jireen oo gabadhii ay u gol fadhiisan jireen. Kadib ayaa si sharaf leh inankii gabadhii loo siin jiray, reer kalena ay ku gudoomi jireen gabadha. Taasi marka waxay ahayd dhaqankeenii hore. Noocyada faraha badan ee ay isku guursan jireen lamaanihii hore ayaa waxay ahaayeen dhowr nooc oo 10 nooc ayaa hablaha loo guursan jiray. 10ka nooc waxa u horeeya number 1, gabadha heerin wax la yiraahdo. Gabdhaha markii hore waxa loo guursan jiray da'dooda weynaata. Kadib ayay tagi jireen deegaamo kale si ay markaas cidda ay nolosha la wadaagi lahaayeen ay u xulan lahaayeen, iyagoo siyaabooyin kala duwan ragga ku kala dooran jiray. Taasi waa qodobka koowaad. Qodobka labaad waxa weeye sahansho. Gabadhu way soo sahansanaysaa meeshii ay markaas ama reerkii ay u geli lahayd.
laakiin waa markii ay wiilka inantu ka hesho ayaa waxay ogaan jirtay reerka uu ka soo baxayo iyo gurigoodu sida uu yahay. waa midda labaad. labana waa geeri ayaa keenta. oo laba waxaa keenta geeri. dumaasha horta ereygan dumaal waa gabar saygeedii ka dhintay oo markaa uu dumaalay reer inanka familkiisa mid ka mid ah, ama inanka walaalkii ahaado ama inanka qof u dhow ha ahaado, ayaa waxaa la yidhaahdaa dumaal. xigsiin ayaa waxay yihiin labada ay geeridu keento. xigsiintu waa inanka xaaskiisa oo dhimata. waxaa la siiyaa inanka markii xaaskiisu ka dhimatid inanta walaasheed. taas ayaa waxaa la yidhaahdaa xigsiin. labana waa boob ama dhac. weli waxaan ku dhex jiraa 10kii qodob. qodobka koowaad ayaa wuxuu yahay la baxsasho. wiilka ayaa gabadha la baxsanaya iyadoo aan reerkooda waxba laga ogeysiin. kadib ayaa waxaa la wargelinayaa qoyska ay gabadhu ka dhalatay, ama ha laysi siiyo ama yaan laysi siin. midda labaad ayaa waxay tahay dhabar garaac. dhaqamadii hore Soomaalida qaarkood mad kala aragtid waad la yaabaysaa, sida hadda qodobkan oo kale. gabadha oo dhaan wada ama reerkeedii markaas alaab inta looga soo diray magaalka ayaa inantii waxa laga helayaa jidka dhexe. inanka la socday saaxiibkiisa ayaa gabadhii la kaxaynaya oo waxay kala harayaan dhaankii ay waday ama safarkii ay waday. inanka kale saaxiibkiisa ayaa loogu sii dhiibayaa awrta iyo markaas inantii waxay waday. haddaad aragtaan xinlow xajiin noolaha marsho ceebaa xaashiya ku qora xaqiiqdii wuu buka